سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيام الله دمان وأنا دوهاي وما سنتهاي مسرحة سيدي سواء السجا ومن عالمي الدنيا ودمدي البحر مدخ كواتر سنة لقصو دحلي مركات في ريسيت ودمدا غريغا تشاينا الدنيا ودمدا ما عرفتي انت بدن caanka ku noqday masraxa India ay ku jirto marka oo sidoo kale wadamada dunida Carabta marka loo eego laftirkooda bariga dhexe masaarida iyo waxa la tilmaamayaa dawlada kale oo ayana caan ku noqday masraxana uu ku bilowday markiisii hore qaab lagu soo bandhigi jiray qaab diinta maartay lagu fidiyo oo dadka lagu wacyigelinayo markaas waxyaabo kala duwan oo la xiriira waa islaamka wixii ka horeeyay intii hadda aanan islaamnimadan iyaga sidii wali banaanka uga yihiin wixii markaasi ay ku gudbinayeen wali kama aysan zuulin laakiin waxa laga siman yahay in masraxa uu yahay mid ka asaga lagu gaarsiiyo ama lagu gudbiyo waxyaabo fara badan dad umad maartay iyada ay leedahay dhaxal hadii ay ahaan lahayd dhaqankeeda hidaheeda suugaanteeda ama xataa luqadeeda baan yiraahdo waxaana badi marka inta badan lagu wacyigelinayaa waxa markaasi loo baahan yahay xilligaasi in lagu baraarujiyo ummadda markaasi la doonayo in loogu soo bandhigo masraxa ama tiyaatarka waxa iyaga markaasi ay uga faa'iideysan karaan dhinacyo kala duwan masraxa aqoona lagu fidinay wacyigelina lagu fidinay waxa lagu soo bandhigay ummadda dhaqankeeda culture-keeda wixii markaasi loo baahan yahay in ummadda loo gudbiyo ayaa loo adeegsanayay waxyaabo fara badan marka dadka hadda caanka markii dambe adduunyada loo yaqiinay scholars nin la yiraahdo iyo Greek ay ahaayeen kuwaas dhinaca Ingiriiskana Shakespeare ayaa la soo qaataa dhinaca Carabta iyo maantay Cleopatra iyo ayaa ayagana la tilmaamaa la yiraahdaa Soomaalidana marka waxa waaye waa lahayn anaga markay sababtoo caadooyinka iyo dhaqanka naanka istunka xataa waxa waaye waa nooc min al-masrah dabshidka ciyaaraha ee kullu ciyaaraha folklore waa nooc min al-masrah ee lagu ciyaarayo wadadka ee fantasiyaha ee farxadda lagu soo gudbinayo waxyaabaha kullu lagu soo bandhigo marka masraxu waa wax aad runtii la yiraahdo waa school waa madrasa oo ayada wax barasho naftirkeeda qayb ay ka tahay wax lagu soo bandhigayo tiyaatarka markii ugu horeysay waxay ahayd aniga 80kii markay horena fanka ardaynimadeedii way iska jeclaa laakiin fan masrax oo aan soo istaagay wala weynay bilow ii ahayd heestii aan qaadaynay aan la soo fuulayna waa heestii ceelbuur oo markaa heesaha fanaaniinta ayaan jeclayn ayaan dhageysigeedii corona laakiin masrax aan soo fuulo aydan sababay ku timid saaxiibkayga ah oo anaga habeen aan isla wada aadnay oo gabdha anaga ee reer wala weyn ahaana waxa waaye markaas oo kale waxay ahayd magaalada dadka imaanayo ama dadka soo galay dad xagga ciidamada ama dadka dawladda u shaqeeya caruurtooda iyo kuwa ayaa anaga le marka magaaladii waxaan ayna ku kubadda ciyaara marka orientationadii markii kacaankii u dhisay ayaa gudoomiyii degmada ayaa wuxuu yiri hada masrax iyo waxa lagu talagalay in riwaayad lagu soo bandhigo fan lagu soo bandhigo reer wala weyn hada anaga ma garanayo waxaad soo bandhigi doontaan anoo xoogaa meesha ihaana yar ku jirto gabar uu dhalay baa marka meesha ka haystay jallow hajabin jallow waan kula jirnaa jallow weligaa hajabin gabadha Allah naxariistay waxa iyada buundadii Beledweyne ee jabtay ay ku dhimatay baa la dhihi jiray ayaa la yiri aabaheedan Faarax waxa la dhihi jiray Maxamuud Saleebaan oo wuxuu nin reer Laascaano anaga marka masraxeena Soomaaliyeed maadaama ummad muslim ee qiyam akhlaaq ay ku qotamaan waxa lagu soo bandhigayo inta fara badan waxa waaye waxa jiri jiray wax la yiraahdo faafreeb oo masraxa laftirkiisa marka dawlad ahaan loo baahan yahay waxyaabaha waxa laga control jiray hadii riwaayada lagu soo bandhigayo hadii heesa lagu soo bandhigayo wax kasta
qiyamka ama akhlaaqda markii bulshada ee ayada taasi saamaynta kule marka laga yimaado xataa nidaamka markaasi jiro wixii ayada ee u arkayso wax lid ku ah ama wixii markaas ay u arkayso in maaragtay kicin ama bulsho oo ayaga laga horkeenayo xataa intaasi waxaa loo samayn jiray faafreeb oo ayaga heesaha maalan marka loo kontaroolo oo wax lagu soo bandhigayo akhlaaqiyan oo heesaha laga ilaalin jiray oo taa adduunka wadamada badi ee muslimka ah markaad eegtid yani aad baa weli aniga carab ayaa dhulka aan wax ku soo bartay siiba Suudaan oo weliba masraxa dadka wax ka qorayna aan ahaa yani waxaa laga wada siman yahay qiyamka ilaalintiisa maalan shucaarada xataa waa ogtahay sababta suugaanta loo tiriyay wajiyo far badan ahdaaf bay leedahay nin u tiriya maaragtay dhiirigelin qola maaragtay u tiriso maaragtay gabay oo ammaan ah mid dad maaragtay lagu caaynayo ama mid qof maaragtay isaga lagu maaragtay wacyi gelinayo oo dadka loogu sheegayo mid lagu dagaal gelinayo waxa waliba noocyada laga helo jacayl loo tirinayo laakiin waxaa meesha laga ilaalin jiray erayada xarafta leh iyo akhlaaqiyadka wax u dhimaya oo siiba jirka maaragtay inta loo baahan yahay ilaahay asturay in aanan afka lagu balaarinin oo carabiga ay yiraahdaan nooca shiciradaas oo kale waa mid la yiraahdo waa khaliix oo gabdhaha ama haweenka xubnahooda ama ragga oo taranka ay maalan afka lagu balaariyo carabta waxaa aad loo dhaliili jiray in la yiraahdo Nazaar Khabaan dadka sheekooyinka qoran Xasan ibn Qaduus oo ayaga maartay aanan inta fara badan anshax xumo oo ayaga laga dhahan jiray suugaantooda aadna marka dhalinyarada ay u jeclaayeen laakiin marka anagana aad eegtidna suugaan noocaas oo kalena oo ma badneen laakiin waxa celin jiray nidaamka dawliga ee sharciga ee jiray oo lagu sameyn jiray faafreeb hadda laakiin waa aragtay waxyaabaha mira ahaan loo qaaday oo akhlaaqiyadka ka hor imaanay laakiin anaga markii nidaam dawladeed aan qabnay burburkii ka hor wax waliba waxay ahaayeen control qoraalada ee wadanka ee xataa buugaagta soo galayso wax waliba manahijta waxbarashada ayaa waxay ahaayeen wax asluubaysan kulli wax taariikhda lagu soo gudbiyo oo ummadda dhaxal reebkeeda maartay wax noqon kara ilaan masraxa saan ku sheegay waa waxa thaqaafadii ummaddaas oo dhan iyo dhaqankeeda iyo hidaheeda lagu gudbinayay ayuu ahaa haddii la rabana marmarka qaarna loo adeegsanayay wacyigelinta marka aan aragno tusaalooyin marka anaga cadow xataa aan la dirirayn waxay ahayd maartay meelaha lagu soo bandhigay waxyaabaha istiqlaalka xurriyadda wadiiqada lagu gaari karo sida cadowga ee difaaca sida ciidanka maartay ayaga dhiirigelin loogu sameynayo waxaasoo dhan waxaa lagu soo bandhigay practical ayadoo qofka maqal iyo muuqaal ah sheekooyinka taabagalka noqday inta fara badan riwaayadihii ayaga dadka Soomaaliyeed wacyigelin ay u ahayd oo maalan guurka maartay sida asaga hadduu tooso oo uu qiimo leeyahay haddii uu maartay xumaado cawaaqib xumada uu leeyahay waxyaabaha faraha badan ee isaga keeni kara bani aadamka dabeecadda marka loo fiiriyo tuuganimada iyo dhaqan xumada iyada wacyiga dadka maartay jiilka soo korayo si ay uga tusaale qaataan waxyaabo fara badan oo maartay diinta laftirkeeda asturnaanta iyo waxyaabaha loo baahan yahay in shacabka loogu gudbiyo qaab diineed hadba waxa waaye sidii loo arko haddii ayaga loo maartay xataa filayo in waxbarashada sida loo dhiirigelin karo saaqidnimada dhibka ay u leedahay ardayga aanan ku toosnayn waxbarasho sidoo kale ardayga dadaalayo sidoo kale askariga disciplineka leh sida asaga uu ku gaari karo martabad iyo darajo caali ah sidoo kale ummadda ninka ayaga ay u xulan karaan cadaaladda maartay ayaga markaas la rabo jidka ku habboon ummadii lagu maamuli karo shacabka maartay iyo dawladda sida ayaga dhexdooda waxa la iskaga baahan yahay labada dhinac ayaga looga hooga tusaaleyn karo marka wuxuu ahaa sida daayib aan tilmaamay meel yani laga qaato waxaa la dhihi jiray cilmi iyo maxaa la dhihi jiray iyo aqoon oo maartay kaliya maana xataa waxyaabaha qisaska maartay dadka annaga naga horeeyay iyo kuwa soo socdaba oo ayaga wax ay bari dhigaal ay noqon karaan dhaxal ay noqon karaan sida maalan hadda waa ogtahay riwaayado fara badan ayaa wad iyo wacad oo kale ayaa hadda riwaayadaha aadka loo yaqaano
جور أما جورسو ما قرتي ومعرتها يعني شباب ناقود إفئية آخره رواية ده حلقة كان نقضي ومد هذا الصوماليات آت كمعرتي أنا مسك حدودك الجورين آت فن كمعرتي حتى نفتر كيس استحق البلشو أيو أبو ريا dadka maartay isfahamsiin oo waxa laga yaabaa bi'adaha kala duwan dadka Soomaaliyeed hadda reer guuraha kaliya inay markii hore ku suntanayeen markii haddana qaarkood aanba ogeyn markii riwaayadii banaadiriga soo baxay waqooyiga la geeyay oo ayagana ay arkeen hadda riwaayado oo qaar oo hatta eray oo ayaga agtooda qaali ka ah intana ay erayada oo ayagana erayadaasi maartay ayada macna kale ay u leedahay hatta isfahamkaasi door bay ku lahayn sida riwaayadii Shumay oo kale way fahamsanayaan أنا قبلها أنا مثلاً مركل سوق هذا مثلاً بحثاً وكله يعني وحي عنكو أي ساعة غير قلنت دقال قلنت إيو حماسة عد كذا وحوها مثل يعني عرفت وحي ترى والسحر مقرت إياه وحي هايد قبركو عام بحضي دقال كي والحدمية دي إن عيداً كدبا كعدو جيش كيغو قوليستا إيو مقرتيا هسي مركاسي لغولب ديريراي مارتيا بحاركي واساقا مركاس وبري أيغا مركاسي حتى كوح قديمي أو الحدمية مركا قوانيمادي أنا قوانا اللح جرسانين تقالنا لغو سوقادي باجيري ومركا وحدادك لغو كعيناي حتى اسواي الكي حلي أيغا لجوغي كل قوة وحي أهايين يعني فنانين وسيدا مركا وعربيسان dadka in maartay lagu wacyi geliyo xurriyada macaanka ay leedahay isticmaalka dhibka uu leeyahay waxa waliba ee cadawga marna asaga waa ogtahay ninka ee fanka ama suugaanyahanka marna wuxuu noqon karaa nin lawyer ah oo u dooda dadka mar wuxuu noqon karaa abaanduule ciidan ee dagaal gelinaya ee dadka mar wuxuu noqon karaa macallin ee dadka wax baraya oo arday oo asaga u gudbinaya cilmi aqoon mar wuxuu noqon karaa dhakhtar wax daweeya oo adiga dadka cudurrada ee ayaga markaasi ka hortaga ama sida loo dabiiba ma artay ee suugaan ugu sheega yani waa nin philosoph marna waa nin ma artay ee sidii loo baahdaba oo markaas psychologically nin xataa bulshada u daaweyn kara xigmadihiisa ilaa suugaantu ayada la mid maaha hadalka caadiga ah wuxuu la nool yahay qofka shucuurkiisa marka waxay ahayd مثلا gabadheenaasi Allah u naxariisto Zainab Xaaji Ali Baxsan siigaale يعني قبل هذا عيداً كحوجة ذلك الصومالية أي هاي رنتي آد بعدتك وحيكون قارتي إن أيضا بلاد لوسيو يعني السيد عيدا مرها ودقال جرين جرتي فنانين مركز قبلها ني مركز ضم هذا يجانا أهان إيو صوبنديد أهان مركز لي هذا يجانا هي سها إقادة ينا مقولة كله أي أيضا واحد قبل كتل المامن قبلها أنت حد أنا قفنك قوة ضم بيكو هرب ويلا هاين kuwa hore ayaa ma artay anaga aan ka soo qaadanaya tusaale oo waqtigeeda ee aadka xiliyadii dagaalada ma artay Soomaaliya ay kula jirtay cadaawuhu ay aad u muuqdeen oo ayaga marka haday militariga ma artay ayaga xaqiisa loo kaco kooxo waxa jiray horseed waxa jiray kooxo ayaga marka loo baxo booliska oo ma artay iyadana aad ma artay dagaaladii hadda markii 77 heegan oo Cabdi Bashiir Indabuur mu'allifkii uu ahaa وأد هي سفر بدن إحدى إلى يومنا هذا وضنيات ما أرتي دير الجلينتا يا هدي عن دبل ورين ما أرتي استانا دليلي هي على كي نورو يعني وحاسودن كل يعني هي سوء تاريخيا دتك الصومالية وكيتسن مركا اللو هاي شعبك إن لك جوبابيو كله أديك سلو أي أجرا صح فنانينتي أورت أنا دتك لنا حاجة وقوية يجري هرجيس أو كله يعني هوي فنكا مكرتي يعني حاجة سوينها إنه وآد مؤلفين وآد مارتي وتريا أي جري يعني رنتي نهايسها إيو حاجة إيجا نلاشر الجوراجنة سيدا ده بحي عن أي كوا هاي دتك جويدا ولو أيجا مركي هور أيجا لطر كودا نعخ قار كودا اللي أديك سنكري نعنب أبوري كرا عربي لو يراده إيجابيات سلبيات أم بوزيتيف نيجاتيف أي لاين كوا كعين قبيل اسكو درت غير كلا لعينايو ولا أفلقات دينايو وأن وحبا لو ريبانينين تاس اسكو درك إيو بولشادة مارتي كعنتا عولاد أو أيغا تاسي سوكيها كو عام بحي واجير أو أيغا
faan iyo maartay qolo kale meel ayaga iska dhigid maartay wax ayaga aanan ahayn bulshada kale dadka ay rabaan inay hoos u dhigaan ayaga ay luqadooda oo u adeegsanayeen sida qalafsan waxaasoo dhan waxa waaye suugaanta iyo dhaqanka iyo caadooyinka iyo hidaha waxsan iyo wax xunbo waxay u ahayd wax lagu gudbiyo ama hab iyadoo ah heeso ah ama ayagoo riwaayada oo masrax lagu soo bandhigayo haddii xataa lagaga soo horjeedo dowladda si dadban heeso waxaa la samaynayo oo carabta waxay yidhahdaan dimni heeso oo micno ahaan ee qarsoon qofka ee xoogaa yar ee caadiga ee aanan garan karin laakiin ay tahay sarbeeb oo ayada ee aad maartay diibli oo ayada wax badan maartay ee ku aasan waxaasoo dhan kulli waxa waaye ay garan kara keliya dadka ee u bisil maartay luqadda ama fahamka maartay fog leh waxyaabo badan baa marka horta iyada ay keenaysay laakiin ragga heesaha horta maalan ilmo mooga ayaa dadka qaar Axmed iyo Maxamed dhinaca waqooyiga badi heesaha iyo waxa la tiriyo dhinaca antiga wax la yiraahdo oo xilligii kacaanka ayaga aad loogu tilmaami jiray xagga heesaha wadaniyadana ee badi dad ka soo caanbaxay Ismaan Aadan Askari iyo maartay iyo huriyo iyo maartay hadee ninkiisa ma salaad intuu ahaa salaad waxa waaye laakiin xagga ilaahay ku masmadiido sooraan oo kale iyo maartay waxa jira Maxamed Yuusuf oo kale dadka fanaaniinta caanka ah dacar oo kale dadka muallifiinta ah baa jiray huriyo waa sheegay haddana macallinkii weynaa Hadraawi iyo magartay ayaa waxay ahayn dadkii xagga ka soo baxay haddana gaariye iyo rag kale oo haddana oo ayagoo mutacallimiin ah oo haddana fanka haddana qayb ay ka ahaayeen oo hal abuurayaal ayaga ay ahaayeen baa dhinacaasi aad uga soo baxay gabdho oo waxa soo baxay oo aad u cod macaan oo markii dambe maandeeq iyo weliba maandeeq waxaa la tilmaamaa waqti oo xishood gabdhaha fanka in xoogaa laga yacni dhowrsan jiray loo malaynaya fannaankaba hadduu asaga u noqdo heesa ama gabadha xoogaa qof hallaabay oo kale bulshada marka sida ay werinayeen maandeeqna gabar dheer oo qurux badan bay ahayd waxaa la yidhi aydoon la filaynin berbere baa lagu soo bandhigay masrax maandeeqoo iyada masraxa soo kortay habeen hees ee qaaday baa markaasi lama filaynin nin baa reer waqooyiga hadal ma dhibo waa ogtahay markuu isha uu maartay uu ku dhuftay oo masrax Faadimo Cabdilaahi Maandeeq wariyaane mayna Cabdilaahi Maandeeq baa tani haa timiri jabtay uu yiri marka waxa waaye runtii guud carwe iyo yani dhinacaas waxay ahaayeen xaqiiqatan annaga riwaayadaha walaalaha Hargeysa ee naftirkeena markii ay koonfur ay yimaadaan aad baa loo jeclaa wadankan nabad baa jirtay min Hargeysa ilaa ay Kismaayo bas bay ku maraayeen anaga walweynaan deganeen meeshaas ardayda riwaayadaha waxa la gali jiray ardada ay uniformkoodii wata markii laga soo baxo ayaa horay waxay ka aadi jireen masraxa oo saf dheer ayaa markaas koonfurtiin hadee fanaaniin fara badan qaarkood waxay ka yimaadeen kiliga shanaan sida Maxamuud Tukaalo kale ayagana ay ahaayeen fanaaniintii marka way isa soo tarayeen dowladda kacaankan waxay ku caan ahayd fanka yacni waxaa horumarintiisa iyo isboortiga labadaasi been ilaaha ahaayey ma gartay waxay ku ahaayeen maanta wax ayaga la dhihi karo xilligaasi wixii laga gaaray Soomaaliya fanaaniinteena dibadda wada aadi jireen ilaa iyo China ya Afrikada koob bay ka soo qaadi jireen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka 80 iyo intaas ka badan fara badan dad fanaaniin Mustafa maartay Sheekh iyo kulli iyo markaad eegtid fankii banaadiriga sii hormarayay oo awasgeedo iyo maartay dad Raafi iyo dad fanaaniin soo baxay Axmed Naaji iyo dugsigii fanka oo macallinkii fanka asaga lagu tilmaamay kullaha يعني فنانينتي marka qaar tuma qaar heesa qaar jilaad noqda ma laga wada gaari karo magacyadooda fanaaniinta maanta dhalinyaro cod wanaagsan dhiirigelin u baahan waa jiraan fankii fiicna inay ku daydaan hal abuurayaashana hadal oo la iska sheekaynayo ee muusiga laga daba tumay iyo wiilal iska iyo gabdho oo waalan oo ay iskaga yani waxaasi ee maarta raabkaasi waxay qayb ka yihiin duulaanka dhaqankeena oo lagu doorinayo sababtoo adduunka waxa la isku wada yaqaanaa laxanka markaad eegtid Soomaaliya iyo Suudaan iyo Ethiopia waxa la yiraahdaa waxay ka heesaan sulam al-khumaasi waxa la yiraahdaa jaranjarada shanaad hore laga garanayaa marka music uu tumo oo maanta sulam al-khumaasi oo ayaga jaranjarada shanaad
ninka maartay cazaafka ama ninka music kaban ama hatumo ama violin hatumo ama ma aragtay saxophone hatumo ama gitaar hatumo aba kaban waxa waaye isla markiiba jaranjarada heestan hees Soomaali inuu soo wado ayaa la dareemayaa hadduu halfton oo tumane hees carbeed inuu laxankaasi inuu soo socdo wadanku doona ha ahaado laakiin laxamada iyo maartay musica xataa waa la kala leeyahay annaga hindida ayaa noo soo dhow waa aragtay ninka Ethioopiyaanka markuu qaadayo heesaha Suudaaniga waxaad leedahay kan waa Suudaan ma wardi ba mise waa Sayid Khalifa mise waa Kaabili mise waa Hamdurreex ya qastay mise waxa waa mise Salaah ibn al-Badiya ya ninka Soomaaliga waa fudud ayagana heesaheena way qaadi jireen ma garatay anaga Axmed Rabsha xagga dadka ku soo baxay budugsi dhan ay waxay leeyihiin music looga soo baxo oo maartay waxooda si hab cilmi ay music ay u soo bartaan sida anaga da fanaaniin aad maartay markay kabanka ay qabtaan la yiraahdo alla ilaahay fartaan muujada waa Xudaydi ma yatan waati Daawud Ali Masxaf ma yatan wallahi waati magaciisi Jim Sheikh Muumin alla ma yatan waati Umar Duule ma gartay fanaaniintii waa ayaga laftirkooda xagga tumida maartay ninka ayaa la kala bartay sida ayaga codka toonka maartay qof waliba royal laxankan ma hebel ba saaraya leeyahay Django oo kala maartay waxay aan dad ayagana laxan kale codadka marka dadkii kale xagga heesaha loo dhiibay ku wanaagsan codadka Xasan Aadan iyo dhalinyarada soo baxday ma gartay Cabdi Tahliil iyo fanaaniintii hore waa weynaa Beer Dilaacshe iyo Allah u naxariisto markii dambe dad baa soo baxay oo maartay runtii aan hal iyo laba aan ahayn gabdhihi iyo wiilalba labada dhinac ay ahaayeen laakiin haddana way jiraan fanaaniin dhalinyaro ah cod macaan oo laakiin se qaarkooda iska tahay xataa si hore loo qaaday si kale u qaada jijibiye murtida qaarkooda sidii loo tiriyay ama qaar baa isku day adduunka waxa way xuquuq way cajalad hees nin leeyahay amar aan iska ma qaadi kartid fanaaniin fara badan baa timid abwaanka marka aniga heesayga bad iska Cali Diiri Cali Gaab riwaayadaha gaanka badan sameeyay iyo heesaha aadka macnaha maartay weyn ku fadhiya Allah u naxariistay oo asalkiisana reer Djibouti ahaa Ciise ayaa anaga marka ardaydii heesaha ay barnaamijyada iskuulka markii la xiraayay iyo funky iyo sportiga iyo kor u kacay oo ciidamada ay noo imaanayeen mar waliba kubad ciyaaro iyo fan iyo maartay riwaayado ayaa anagii marka waxa heesaha badi marka asaga uu tirinay ayaa waxay ahayd kuwa aad u qiimo badan sababtoo ah heesaha kaliya maanta aniga aan ku leeyahay heesiisa waa Shankaroon isaga saalifay اسبرني اللي يراد على دير على قابا اسكله هيس اللي يراد قرو جعيل على دير على قابا اسكله isla bari doog la ayaa heesta cali maartay ceelbuurku yaalay sida dirbi qaado asaga meesha lagu alifay Afrika isbuuro Israa'iil ma boodeen bari dhaxintu dago bari doog lu ku alifay waxa uu ku alifay dhigin maayo tuutaha ma gartay meeshaas asaga oo sala dirbi qaada midaan kale if iyo aakhir riwaayadeedas xagaasi bari doog lu ku sameeyay adiga cali wuxuu ahaa nin bad ah heesiisa marka أنا حفظت أيقنا جيبوتي مركي عرية قاعدتي حاجة عيدا كيلو دري وكم ده دولتي عيدا إيه وحيسكو درتي إيه وحوليبا أنا مركي هيستا واحد في السنة مركي شنكرون هيستا إذا سي أنا واحد في السنة إساقينا كتجي ركوا حنا أركي يروح وجا أنا قفحت يجوري هيستا إساق لكن هو جيريودي إساق مرق هذا الليلون فنان لدي جري كدب هيستي وأنا واحد في السنة الليلة هيستا هبينكي أوري سواء تياتر كلا تغي قرو جعيل ماي هس مي كلها بونتاي ومعلنكي او رقويها مeel dheer adoon jiray inaan mi xanaaba second la igriye kaalinta labaad haddana waxaan oo la tagay heestar iraad qaraw jacay kaalinta labaad la igriye anoo jaamacada markaas dhiganayo yaa kaalinta koowaad galay ardaydii secondary schoolka ee qaar ka soo baxay Ali Idris la yiraahdo uniformkooda marka waa ogtahay ardayda shaatiga cad iyo kaakiga ardayda secondary-ga qaadanaysa dugsiga sare kan jaalahana ku dugsiga dhexe ardaydii secondary oo dhan hamle iyo wiilal ay taageer u ahaayeen ilaa ninkan waxa way secondary school ay wada dhigtaan habeenkii marka kaalinta marka koreer qoy oo horay fadhiyo hadda ninkani weligii waxa ay siiyeen anaga ma u naqaano wax uu sheegay laakiin adiga anaga kaalinta koowaad noo gashay yiraahdeen murtida iyo heesta maantay waxa isu dhowna maaha ilaahay amarkiisa teer ay maartay oo nin asagana ahaa
محمد حسين تير كلية صحافة وكبحي أنا كان كلية لغة عندي جناي جودي أرضيدا جامعة دواء سنقيني جودي مركا جنسورة هي صاحب بينك مركا لقلا أيها ضدك كلا سارة وحكم ده إبراهيم حسن داندوري هات مركا ريستورانت كويا لي مقايد هل كان ماشن تلجر كدهسون أكتيسة كوغار الأورنجري أيها ماشي أنا قادة أسوق قلي إيو لبضو ديو كترسن إذا عاد قرنك isla markaana uu yahay teer maartay madax labadooda ayaa wuxuu maartay yeeray maartay teer yalla talxa xalay waan ku dhageystay ma sha Allah waa dadaashay kan daanduraya soo bood wuxuu talxa ma taqaana talxa maxaan aqaan waayo ninka jaamacada wada dhiganaay Allah ma talxa jaamacada dhigta la dambiyan ka galnay oo yar maxaa dhacay annaga waxaan u siinay kaalinta koowaad wiilka ardayda secondary school way dadka fanka waxay ka aaminsan yihiin khalad in maanta kuwii wax bartay ee ardadii dhiirigelin bay annaga noo ahayd ayaan ku siinay maahane miraha iyo heesta iyo sida ay annaga aan u raacaynay si kasii duwan baan ninkaasi ku qiimaynay kuna ninkaana jaamacad dhigtaa la yiri se idinka aad maartay arrintaasi miriya maya wallahi kan habeenka wixii ka dambeeyey heesta marka dambe waxaa la soo shirtagay shankaroon haddii 2 jeer la biisay waxayna noqotay haddana mar kale fanaaniintii la iskugu keenay inaan haddana ayada kuusoo kurtuwaari iyo rag kale ee kaalinta koowaad horey u soo galay in ninkii igu soo xiga kuusoo waa 40 uu keenay dhibic anigana 70 iyo wax la jiro halkaasaa marka aniga masraxa aan kala qabsaday oo aan imaado tiyaatarka qaranka oo heese kadibna waxa way kaalinta koowaad waxaan ku galay odan ma dhagray waxay ii dhigneed horta anigoo markii hore fankeyga iskoolbiyada aan ku ahaa ee magaala aniga xagga walaweyn kaliya ku ekaa wuxuu soo gaaray markaan caasimadii u soo gudbay wuxuu noqday idaacaddii qaranka isla markii xataa aniga kadis igu noqotay boondheere ayaa markii aan marka imaaday ee xamarne balidoognana waan ka shaqaynayay anoo 17 jir ah ayaa shaqo ii suurowday 13 sano anoo wax baranayana jaamacadeydana dhiganayay oo mushaarkaygana qaadanayay aan runtii aan ilaabi karana maaha fursadaasoo weliba mar weliba aan soo gaaro aan jeclahay inaan xusuragii abaalka igu lahaa عمر حاشي آدن iyo Ibrahim Jabni la dhijiray aanan ilaa weynin doorkoodii mugale xataa markii aniga aan xamar la soo bedelayna scholarship inaan haddana jaamacad aan helo oo maslax maxamed siyaad laftirkiisa aanan inkiri karin dadkaas oo caawiyay maxaa jeceshay dadka gaara loo dhisay guriyaha ee xamar badi waxa laga dhistay Damaanyo ruushkii baa maartay ayaa wuxuu ahaa xiriir la lahaa ee hogaanka dhismaha xooga alwaaxda qiyaas ma lahayn shamintada shidaalka waxaasoo dhan kulli waxa loo fududeeyay ninka intaasoo mitir kuba la siinaya ninka intaas aniga marka maxaad jeceshahay waxbarashaan ku dhex jira la caawiyaan inaan waxbarashadiisa wataan rabaa waa la igu garabsiiyay waana runtii ku guuleystay inaan dhigto anigoo jaamacad 4 sano oo gahayd kulliyada luqadaha kaga baxo fankaygana aanan ka bixin oo tiyaatarka aniga riwaayadaha marka badi aan imaado oo waxa waaye meesha ugu horeyso mar haddii adiga caan noqotana lagu bartane fanaaniintii dhan baana dhiirigelinaysiina soo dhaweynaysi adoo haddana jaamacadda marka adiga aad gelaysaaba dad hore lagu yeeraa intaadan qalin jabinin ma garatay markaas fankiina xiiso badan uu yeeshay markii dowladda kacaankana waxay samaynaysay ardayda dugsi sare ayaa fanka lagu tartansiinayay kooxdii danan ayaa u badneed oo dhalinyarada ee la dhihi jiray kooxda ururka dhalinyarada Soomaaliyeed oo Allah khayr siiyay hadda saaxiibkayga waa nool yahay salaad maartay asaga maartay hadda wili uu joogo rag marka hadda qaar shabeelna la yiraahdo ku xigay waa markay soo wada baxayaan fanaaniin oo ubaxa ayagana marka kacaanka maxamed xarako iyo maartay Allah u naxariistay magaceeda Ali Muday iyo Mariin Ali Muday iyo yare Zaridan Dush hadda ayada safiirad noo noqotay hadda East African Community ku jirtay dhalinyaradii waxay ahaayeen gabdhihii ubaxa kacaanka